tirada dadka u dhintay xanuunka sanfarka ah ee COVID-19 dalka Mareykanka ayaa korortay 24 saac la soo dhaafay waxaana maanta kaliya u geeriyooday xanuunka COVID-19 4892 qof iyadoo tiradii shalay ahayd 2405 qof taasoo dhaaftay laba jibaar dhimashadii shalay inta uu soo ritay maanta xanuunkan oo qura ayaa kor u dhaafaysa 30,000 halka shalayna ay ahayd 26,000 dhimashada guud ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 30,000 waxaana laga helay in ku dhow 640,000 oo qof gobolka New York ayaa dadka u dhintay waxa ay maanta kaliya gaareen in ka badan 3,220 tirada guudna dhimashada gobolkaasi ayaa maraysa 14,064 qof halka shalayna ay u geeriyootay xanuunkaas gobolka New York 782 qof iyadoo guud ahaan gobolkaasi xanuunka laga helay in ka badan 214,000 oo qof iyadoo dadka looga digay in ay jabiyaan amarka guri jooga oo inta badan gobolada dalka Mareykanka saaran si loo xakameeyo faafidda xanuunkan COVID-19 gobolada kale ee xanuunkan sida baan u quusay ayaa waxa kamid ah New Jersey, Massachusetts iyo waliba California gobolka Minnesota ayaa maanta waxa ku geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdullaahi da'diisana la ii sheegay inay kor u dhaaftay 80 waxaana wali ii suuroobin inaan helo ehelada marxuumka sabab la xiriira bandowga saaran gobolka Minnesota iyadoo gobolada Washington ay u geeriyoodeen 2 qof oo Soomaali ah labadii asbuuc ee la soo dhaafay dhimashada guud ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay gaartay 87 qof halka inta uu soo ritana ay kor u dhaaftay 1,800 gobolada kale ay Soomaalidu degto ayaa waxa kamid ah gobolka Ohio waxaana dhimashadu ay cagacagaynaysaa 362 qof sida ay xaqiijisay wariyeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deeqa Soona Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka